السلام عليكم. صلاة الصبح ma kugu adagtay inaad u kacdana dhib iyo dhibaato badan ma kala kulanta weygiimsa jeer baad u kacda ama goorma se kugu dambeysay inaad salaad subax tukato haddii Allah subhanahu wa ta'ala kuu fudeeyay u kacdana culis inta leeg baad dareentaa markaad u kacayso muuqaalka kan waxaan idin kula wadaagi doonaa qodobo dhowr ah oo ka saacidi doona oo ku ciditaanka salaada ugu qiimaha badan leh qofka muslimka ay tukado maxaan ka wadaa waayo salaada ku ciditaankeedu waxay go'aaminaysaa in maalinkaaga bilowgiisa maadaama ay tahay in maalinkaas ku noqdo maalin wax ku ool ah oo akhriya duunba hormar la taaban karo ku talaabsato inagoo si psychological ah ugu gudbin doona sababaha ugu waaweyn ee kugu kalifi doona inaad u kici doonto salaada kuna salayn doona qofka bini aadamka Allah subhanahu wa ta'ala fidradiisa waxa uu ku abuuray inuu iska ilaaliyo wixii dhibaato uga imanayso oo haddaan ku raado hebel waxa ka joog haddii aad ka joog weydana waxa saas ku soo gaaraya aqligaaga la waaciga ahi waxa uu si toos ah u qaadanaya digniinta taasi ah waxaana u badan tahay inaad shayga kaasa iska deysto muuqaalkeena kan waxaan ku sheegi doonaa 10 faa'iido oo waaweyn oo aad way doonto haddii salaada subax aad dheelsato oo ay ka tagto intayna laakiin muuqaalka bilaabin fadlan ku soo bir kanaalka adigoo subscribe taabanaya gamalkan faroosi ku soo gaaro muuqaal waliba markaynu sidaa u soo gelino videoga kan ahna like gare khayr badan ku duugan yahay oo si share gare asxaabta iyo ehelkaba soo dhawaada Vegas Jet sarif la halfa صدني كو صدن يلا أفر سلاشن يكو ورموت كسرف لها شيء إلكترونيك كسر في حد قال عقيدة دون إسو كو واحد ويسا سيرتيفيكيت كامل بشهادة دي الله سبحانه وتعالى وكاقبريه لي نفاقه هي منافق نبضح نبينا عليه الصلاة والسلام حوله صلاة دوقات قفكم منافقه وصلاة عشاء هي صلاة الصبح وايو صلاة عشاء وهيجي هروحة هاد صلاة وقعدك إلا تكذا ما دام وقت جاني عالم كستنا هين ليد افتنان وتشرين عدتك بادي انت بدنا يكون ولاين ما قالوا ينكلفتوا أنا استنا هين وحاد وقت كيد ينقفك سوق جدو صلاة دنا مساجد كوي ما ده هو تكذا لكن سمعت وحنا نقول كرنا صلاة العشاء سيدي واجا وقت كيد وماتك صلاة الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتلمام بين المنافقين تكوعدك تاعي وصلاة الصبح هذه تير لتكذا وقت هردد وعاد ومعان تاعي ليدي وبريه قفك أنا حتى هبين وننصحني وكوجم يشراي صودا عيسى سادرات قفك منافق الله إيمان صلاته وصقعة قصب فراشكي سايو سيدول سارهانيا هردديسان iskasi wadanaya oo goor waa bariyay ayaaba indhaha soo kala qaadi doona laba waxa uu beerdareeyay sababtii ugu weyneed ee jannadaba lagu galay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qofka labada qabooba tukada jannada ayuu galaa labada qaboobana culimadu waxay ku fasiraan oo salaada casar iyo salaada subax salaada casar hadii jeer dadku markay soo daalaan ee waxa weeyaan gelinka hore dhan ay soo shaqeynayaan doorkiiba yara saxda waxaana suurtagal ah in dadka in badan oo kamid ah salaadaasi ku dhaafto hurdo laakiin hadda sabankii ma aha oo yar tahayba ee duhurkii saxada salaada labaadna waa salaada subax waqtigeedu waa qaboobe liba xilliga dhaxmaha waxa weeyaan aad bay u adag tahay in qof iimaankiisu qawi yahay mooyaane qof kale aan uga soo kicinba salaada tan ah صدح sidoo kale qofkaas waxa uu lumiyay sabab kumida sababaha ugu waaweyn ee naarta lagaga badbaado nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu leeyahay naarta ma galo qof tukada intaan cadceed soo bixin ka hor iyo qof tukada cadceed markay dhacdo kadib oo ana salaada maghrib iyo sidoo kale salaada subax talaadkii maghrib indhaha soo kala haysa laakiin salaadii subax hurdaya laga yaabaa inay kugu dhaafto naarta Allah inaga najiya habeer dareen sababta kamida sababaha ugu waaweyn ee naarta lagaga badbaado ah inaad salaada subax tukato walaalkayo ama walaashay afar qofkaasi sidoo kale waxa uu dayacay ilaalada Allah subhanahu wa ta'ala qofka ilaalinaya waa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka salaada subax tukada Allah subhanahu wa ta'ala magantiisa ayuu ku jira oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaaliya insi jinni labadaba ka ilaaliya استافي آدنا هي عيدا بين اسكو أمناه بالك ورن إلى لدى إلهي هدي دونيسو صلاة الصبح يعني ديل كاجتين شن sidoo kale waxaad beerdareysay khasaarayna inaad hesho ajarkii weheli laha qof habeenkii oo dhan soo taagnaa qiyaamul leyl hada waa 6 ilaa ka 6 ya subhaan nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qofka salaada cishaay jamac ku tukada waxa uu ka dhigan yahay sidii qof habeenkii kala bad taagnaa qofka salaada subax jamac ku tukadana waxa uu ka dhigan yahay qof habeenkii oo dhan salaadu taagnaa Allahu akbar ilaahi qadisana hurdadu ma istaashan waxa soo fadliya kugu dhaaftay ha ku ciyaarin
khayrka lixaad uu sheegay qofka aan salaada subax u kicin waxa weeyaan nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in malaa'ika Allah subhanahu wa ta'ala inoo soo diro malaa'iktaas oo Allah subhanahu wa ta'ala mas'uul uga dhigay bal inayna raadiciyaan malaa'iktaas nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay nala joogaan kuwa kamid ah habeenkii kuwa kamid ahina maalintii waxaana isbedelaan waqtiyada salaada subax iyo salaada casar oo macnaheedu waxa ka dhigan tahay qola salaada subax inoo timaada qola kalena way naga tagtaa kuwii salaada subax inoo yimid waxay naga tagaan casarkii haddana kuwii casarka inoogu yimid waxa ay naga tagayaan subaxii haddaba tan hadda kuwii lagu dambeeyay marka ay ku noqdaan Allah subhanahu wa ta'ala isagoo uga aqoon badan Ilaahay ayuu haddana weydiinaya adoomadaydii sideed kaga timaadeen haddaba tan malaa'iktu Allah subhanahu wa ta'ala waxay ugu jawaabaysaa Ilaahay waxaan u tagnay iyaga oo tukanaya waxaan ka nimid iyaga oo tukanaya haddii salaada subax walaalkay ama walaashay ku seegtana waxaad ka qadaysaa marxaatiga malaa'iktu u marxaati furayaan dadka tukanayay u yimaadeen iyaga oo tukanaya kana tageen iyaga oo tukanaya wanaaga toddobaad uu sheegay qofka salaada subax ka tagtaana waxa weeyaan waxa uu gabi ahaanba waaya nuur iyo iftiin maalinta qiyaamaha ila qatan yahay ila qawan yahay oo qof waliba u baahan yahay nuur iyo iftiina naam nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ugu bushaareeya kuwa socda habeenkii mugdiyadiisa ee u socda dhanka iyo masaajidda si ay salaada u soo tukadaan nuur dhammaystiran maalinka qiyaamaha ee mugdiyada tirada badan leh jiraan Allah yar يعني افتين كاين نور كاسي كوسيك سيدة قفك صلاة الصبح كتك جبي أهم بوحة وساق أشر إيه فضل ودق ما الدنيا ده واحد دول صارن أهدان هذا النقطة الذهب هذا النقطة طلعت يا خيرات ككل جدسن الدنيا ده نحن كنا الله هاي دول صار نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه لبضر رجعات صلاة الصبح كهرية وحي كخير بديهن دنيا ده جود كده واحد صارن oo idil kaasi huwa khayrkii wanaag uu leeyahay sunnaha ka horeeya salaada subax bal ka waran salaadii faralka ahaydna ajirka ay yeelanayso yaa waduud ilaahayun baaka asaga nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay hadii ay dadku ogaan lahaayeen khayrka iyo fadliga ku jira salaada cishaay iyo salaada subax waxa iman lahaayeen masaajidka hadii xataa si kale ku iman waayaan iyaga oo gurguuranaya yaani hadii qofka xataa xanuun iyo bukaan uu hayo oo uu naftu wax weeyaan ku sii daba yar tahay oo uu si kale ku iman waayo gurguurasho iyo bar ku saqid ayagu masaajidka ku iman lahaa hadii ay dadku ogaan lahaayeen wanaaga iyo khayrka aadka u tirada badan leh ku jira salaada subax iyo salaada cishaay qofka salaada subax seegtaana ajirka aadka u tirada badan leh ayaaba seegay qodobka tobnaadna waxaan leenahay qofka salaada subax ka seexday waxa uu helay dhadhankii hurdadu lahayd asahaatee qofka mu'minka ee salaada subax soo kacay waxa uu helay khayr adduunyo iyo mid aakhiro labadaba waxaan rajaynayaa intii ay daawanaysa ugu yaraan hal qof in uu ka faa'iideysan doono muuqaalka kan ah kuna dhiirigelin doono batroolna ugu noqon doono sidii uu ugu kici lahaa salaada subax una tukan lahaa labada ragcadood Allahna subhanahu wa ta'ala u hor istaagi lahaa waxaas oo khayr iyo ajarana uu guuleysan lahaa muuqaalkeena kan ah intaas ayuu nagageeyahay haddaad ku cusubtahay fadlan kanalka ku soo biraadigo subscribe taabaya kamalelkana furo si uu ku soo gaaro muuqaal walba markii soo gelina videogeena kan ahna like gare una sii share gare asxaabta si looga wada faa'iideysto muuqaalka xigeentan isugu iman doono nabaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh